بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. أنا أنت لما وحال سلام يا مجاهدين تأردن يا ملاحظة سرسلة على الشباب لما أردت السلام كان إلا بأيان أدريها وحواي بعدي كتاريخية وحواي وتاريخ ومتقانا لغوكولا يبال هذا وتاريخ لما إلى بانا وتاريخ عيد والبصر حتى يبقى ومتقانا أي قرب إستاقي دونتو حاجة ذكية ضدكين ويحا سوقلي قبلين يفولفولين عيد كهذا الشيء مجرد مركع على الشباب مرمات إيا مرشدهات ومهتيين وانا امهدئلها دولة الصوماليات حسوق الصوماليات كما أرشو والكما كيستو ودورتين جنرال ساعد إنه قدح أرباحي ايربورك تحديثة كيسك على شمجرته مركتان آدي أنا أقول عسنهي وانا كمهدئلها مرمات مرشدهات مجاهدين هالقول إنسان الله وكي يساسوا وكي واقرطا وراها واقرطا مدحوينها دولة الفدرالك oo jooga Mareykanka wuxuu yiri aad baan uga xumahay waxa loo geystay Kenya tii Kismaayo iyo Gedo iyo lagu xasuuqayna kamaanu hadal ka waran arintaas waxa aniga ka hadlaayo waa mahadsiin waxa alxamdulillah rabbil alamin waxa Allah la wixii sharafta Soomaaliyeed kor u qaadayo oo kitaabka Ilaahay kor u qaadayo waan garab taaganahay وحوالي وادتك او حق تقولها وايا لكن حق مدى والله وطبي مدوك ماي وصوت ظاهرة هي حمر طبي مدوك ماي معها وصوت ظاهرة قرنا الله أودي على عوشر قرنا الله سيولا واتهي أرنتن Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninaan warankaagu mudin warkaagu ma galo dad badan oo Kenya ka cabanayay oo oon iska fadhi ku dirirayay ayaa jiray oo gumaysigana diidayay dadkan ku dayasho intee leeg ayay u tahay in gumaysiga la iska dhicin karo magaaladiisii loogu tagi karo waxawaaye ku dayasho aad iyo aad u weyn waaye waana lagu dayaha waana mataqaanaa dad badan inay kasoo mahadceli doonaan nawaaxijiha dad badan oo laakiin oo aan hadli karin oo mataqaanaa laakiin oo yurjira kale waa baliyiin laakiin ma warami karaan aniga qofaa ka baqaaya male laa xukuumaana ka cabsaynin walaa al-shabaabaana ka baqaynin inii aqaafu rabbi alcaalamiin warkayga saas waaye maxaa jira de abriga al-shabaab hadalaaya dadka ilaaha aniga miihi وانا كحمهي اجي على وحسبنا الله معارضة الشباب لو حاير والمهنة انا وهو حاول حاير حتى انه وحيجيبها إن ما تقالنا الشباب ولا عضل ونفره او ما تقالنا الحمد لله كتابك الهي لقاطه او الشباب لنذكر بيستاغو تاسع علي عاصي شيرها وكيل واحد حدي هاي ترسل معهم واتهي كينيا هذا فرصة انتين لاك ايه هيستا mujaahidiinta waxay ku xireen shuruud ah in ciidamadeeda ay kala baxdo dalka hadii kale wixii dhacay wax ka daran ay dhici doonaan fursadaas ka waran Kenya islaamay way ka faa'iideysanaysaa ma ka faa'iideysanayso xanuunka waa loo gudaraa aw xalliga qaliya ka fujitaan leeyahay waxa waaye waxa kala wala si wada ila dadku ku bixi doonto waxa wax soo loogu xiriira ka bixi doonta Ilaahay oo ka raali noqdo insha Allah ta'ala Kenyaatiga dagaalka waxaa kula jiray muddada 4 maalmood ah Yahuuda maxay kula tahay Yahuudi iyo Kenya waxa walaal ka dhigay waxa waaye horta waxa baxeeb iyo mabaaga al-shabaab oo halka ku foolo meel waarasay America Ingiriis iyo maxaa alxamdulillah rabbil caalamiin iyo Israa'iil iyo Canada iyo Pakistan oo soo gurbatay hal xasaab xeeb ugu filanbo ولا أنا قرأ الله أوديه الله قرأ الله أوديه مرشد عند قرأ الله أوديه واتهاي dadka qaar oo wadaadada isku sheegay waxay dhaheen Kenya ciidankeeda dhaawacmay gaalada ah dhiiga loo shubo arintaas maxay ku tusinaysaa waata ugu dambeyntii maxaad soo jeedinaysaa dadka Soomaaliyeed caalamka hadda waa la arkay wax aanan safe ahayn oo la isaga xoreyn karo shisheeye ma jirto oo wada hadal iyo warqado la qoro iyo diblomaasiyad iyo waxaas oo dhan ikhwaanul muslimiin ayaa wax ku waayay oo ugu dambeyntii aad aragtay in
kumanaan lagu xasuuqay caasimadda ee magaalada Qaahira marka maxaad u soo jeedinaysaa dadka Soomaaliyeed ee gumaysiga oo dul fadhiyo dhammaanba inta waxgaradka ah iyo aqoon-yahanada iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa in ay garab istaagaan cid allaale cidii la dagaalamayso gumaysiga waxaa ku leeyahay Soomaaliya maxmiiday ku jirtaa waa gumaysi waxaana leeyahay waa in la garab istaagaa cid allaale cidii la dagaalamayso alxamdulillahi rabbil caalamiin gumaysiga la dagaalamayso dadkiina ha qabsanina dowlad ha ka cabsanina ilaahay ka cabsada ha la garab istaagaa la isaasaa la arag